bismillaahi raxmaani raxiim wararka raadraaca aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a faahfaahin dheeraada oo kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkii hotel ku yaala Kismaayo ku qaadeen al-shabaab musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland oo sheegay in la dayacay amniga hotelkii al-shabaab ay weerareen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inay ka heshiiyeen khilaafka u dhaxeeya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo taxsi ka diray weerarkii ka dhacay hotel Cascasi ee Kismaayo oo diyaar garoow qodobada oo dhameystiran faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Kismaayo hotelkan oo lagu magacaabo Cascasi ayaa waxa uu ku yaalaa bartamaha magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland shalagelinkii dambe ayaa waxa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyagoo muddo kor dhaafay 13 saacadood ka dhex dagaalamayay inta la xaqiijiyay waxa ku geeriyooday halkaasi mid ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland wariyaal iyo waliba gabar la sheegay inay ka shaqeynaysay samafal ama bidicda magaalooyinka gaar ahaan Soomaaliya saaki waa barigii ayaa ciidamada Jubbaland waxay gibi ahaanba soo afjareen dagaalkaasi waxaana madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla habeennimadii xalay u booqday isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo oo dhaawacyo fara badan la gaarsiiyay iyo hotelkii weerarka lagu qaaday warar kala duwan ayaa iminka ka soo baxaya qaabka loo fuliyay weerarkaasi iyagoo wararka qaar ay sheegayaan in la fududeeyay in hotelkaasi weerarkaasi lagu qaado musharax u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland ayaa sheegay in la dayacay amniga hotelka al-shabaab ay weerareen Dr. Cabdifataax Ibraahim Rashiid oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland ayaa sheegay in maamulka Jubbaland gaar ahaan laamaha amniga ay dayaceen amniga hotelkaasi hotelkaas ayaa waxa la sheegay in la soo dejiyay qaybo ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed odayaal dhaqan oo la doonayay inay soo xulaan xildhibaanada Jubbaland iyo waliba madax kale waa kan Dr. Cabdifataax Ibraahim Rashiid oo ka hadlaya diaspora ka yimid dhalinyarada u badnaa hotelkaasi la dejiyay dadkii odayaasha ahaa xildhibaanada inay soo xulaan la rabay oo halkaasi la dejiyay iyo dad kale oo mas'uuliyiin oo halkaasi la dejiyay iyo dad mas'uuliyiin kale oo ayagaba hotelkaasi shakhsi ahaantoodii asal degay oo ayaga meeshaas degay in la dayacay oo markaasi waxay ahayd in la ilaaliyo dowlad goboleedka Puntland waxa waajib ka saarnaa dadkaasi oo ay qaarkood ayada casuuntay shirki kuumada inay ka soo qayb galaan oo dibadda laga yeeray oo dhalinyarada u badnaa haday meeshaas ku dhamaadeen dadkiina ayaga ay casuumeen oo u yeeran oo yiraahdeen Kismaayo imaada hadana aan la ilaalinin nabadgelyadooda la sugin waxba ma taqaanaa aad iyo aad ay dabacsanayd nabadgelyadooda ayna arkayeen waa nasiib daran leeyahay waa aad iyo aad arin aad ma taqaanaa laga murugoodo waxaan leeyahay dowlad goboleedka Jubbaland way ka seexatay arintaas waxay ahayd dadkaasi inay ilaaliso mas'uuliyad baa ka saaran dad mas'uuliyiin oo ma taqaanaa waaweyn baa meesha ku jiray niman journalist oo ma taqaanaa saxaafadda ka mid ah ku dhamaaday gabar macruuf oo la yaqaano iyo sayidkeedii meesha ku dhintay adiga meesha wax la soo koobi kara ma aha aad iyo aad ayaan aga tacsiyeynaya guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleysay inay soo afjaraan khilaaf mudooyinkii dambe soo jiitamayay kulan xalay Muqdisho ay ku yeesheen gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyo ku xigeenadooda ayaa waxay si wada jir warbaahinta ugu sheegeen gibi ahaanba la soo afjaray khilaafkii muddo soo jiitamayay ay taariikhdu tahay 12 bishii Juun waxaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo caalamkaba u sheegaynaa in guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal ay kulmeen oo ka wada hadleen shaqadii taagneyd wada shaqaynta labada aqal markii aanu ka doodnay aanu ka wada hadalnayna waxaan go'aansanay in wada shaqayntii labada aqal
ay bilaabanto oo ay noqonayso wixii khaladaada ay jirayna in la saxo shaqadii baarlamaankuna ay bilaabanto oo aan dalka u shaqayno arrintaas oo aan isleeyahay muddo dheer ayay dadka Soomaaliyeed arrinta sugayeen waxaan caawa u sheegayaa aniga oo ku hadlaya magaca guddoonka labada aqalba hawshaasi inay bilaabantay oo aan ka heshiinay in hawshii si rasmi ah oo wada jira aanu bilowno aad iyo aad baad mahadsantihiin alxamdulillahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo labada guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka iyo guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare runtii caawa waxay la tahay waa habeen muhiim u ah baarlamaanka Soomaaliyeed oo in muddo ah aqalka sare iyo golaha shacabka aan wada shaqaynayn caawa waxaa lagu heshiiyey in labada gole ay wada shaqeeyaan sida dhabta labada gole waa hal baarlamaan ay isku yihiin sharci dejintana labada way isla qaabilsan yihiin sida aad la socotaan shuruuc badan oo muhiim u ah doorashooyinka ayaa yaala oo aan looga maarmayn aqalka sare in dhinaciisi waajibaadkiisi uu ka guto waad la socotaan waxaa noo yaala dastuurkii waxaa noo yaala sharciga doorashooyinka waxaa noo yaala shuruuc kale oo xiriir la leh doorashooyinka marka bulshada Soomaaliyeed mujtamaca Soomaaliyeed iyo caalamka waxaan u sheegaynaa laga bilaabo taariikhda tan caawa ah labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyeed si wada jir ah ay u shaqayn doonaan wixii kale oo hawlo ah oo jira in u baahan xal in la raadiyo oo ay ka mid tahay in ay samaystaan baarlamaanka xeer hoosaad labada aqal ay u midaysan yihiinna waxaan rajaynaynaa si degdeg ah in xeer hoosaadkaas loo sameeyo oo labada aqal ay wada leeyihiin waxaa kaloo jira guddiyo muhiim u ah oo guddiga adeega baarlamaanka uu ka mid yahay asagana si degdeg ah in loo dhiso guddiga adeega baarlamaanka oo labada aqalba qoseeya marka insha allahu tacaala waxaan dardar gelin doonaa hawlihii noo yaalay mar labaad waxaan u mahadcelinayaa guddoonka golaha aqalka sare iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka oo runtii arrinkan door muhiima ka qaatay hada wabillahi tawfiiq aad iyo dumasantiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiideeyay weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Kismaayo madaxweyne Farmaajo ayaa u tacsiideeyay eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii ay ka baxeen dadkii ku dhintay weerarkaasi asagoo bulshada reer Kismaayo uga baaqay inay ku dadaalaan amnigooda ayna la shaqeeyaan laamaha amniga warkii aad ka daawanaysay raaca wararka daawadayaal waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saar channelkan